aynu kasii anbaqaadna halkii aynu marisay taariikhdeeni taxana ahayd ee Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxaana idiin soo jeedin doona aniga oo libax barqiya waxqabadkii kacaanka sanado badan oo Jaalle Maxamed Siyaad Barre hayay talada wadanka waxa uu gaarsiiyay ummadda iyo wadanka heerkii ugu sareeyay ee Soomaali weligeed gaadho waxa horumar muuqda lagu sameeyay wax soo saarka wadanka iyadoo oo la dhisay warshado fara badan xagga ciidanka xooga iyo kuwa qalabka sida ayaa loo dhisay waxayna Soomaaliya kamid noqotay shanta wadan ee ugu awooda badan qaaradda Afrika dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka ayaa si xawli ah u koray dadka Soomaalidu boqolkiiba 90 reer baadiye ayay ahaayeen walow markii dambe ay noqdeen boqolkiiba 40 reer magaalo aqoon leh dawladda Jaalle Siyaad waxay ahayd dawlad shuuci ah hanti wadaaga bishii July 1976 ayaa xisbiga Maxamed Siyaad Barre baabi'iyay golihii sare ee kacaanka waxayna u bedeleen xisbiga kacaanka ummadda Soomaaliyeed midaasi oo ku salaysnayd fikrad ah hal dawlad oo wadanka ku maamusha sharciga iyo bulshada diinta Islaamka midaasi oo qorshuhu ahaa in la waafajiyo dhaqanka bulshada reer guuraaga ee Soomaaliyeed iyo nidaamka shuuciga dawladda Jaalle Siyaad Barre wadanka horumar ballaaran ayay gaarsiisay waxa iska wax u qabso lagu dhisay iskuulo jidad warshado iyo waxyaabo kale oo badan warshadihii la dhisay waxa kamid ahaa warshadii kalluunka ee Laas Qoray oo la dhisay 1970 warshadii hilibka ee Kismaayo oo la dhisay 1973 warshadii shamiitada ama sibirka ee Berbera waxyaabaha kale ee lagu xasuusto waxa kamid ahaa ololihii horumarinta reer miyiga iyo baristii qorista iyo akhrinta af Soomaaliga oo bilowday 1974 socday ilaa 1975 waxaana laga bilaabay caasimadda wadanka ee Xamar iyadoo oo shaqaalaha dawladda lagu amray in ay bartaan qorida iyo akhrinta afka hooyo ololahaasi waxaa ka qayb qaatay 25,000 oo arday iyo 3,000 oo ciidanka xooga dalka ah si ay u tagaan miyiga iyo magaalada oo loo baro qorista iyo akhrinta af Soomaaliga halkaas ayay inoogu joogaysaa la socda qaybaha dambe